Mareykanka waxa uu muuqdaa inuu cadaadis xoog la saarayo Hindiya oo u weecatay dhinaca bariga sarena u qaaday iskaashiga Ruushka iyo Shiinaha iyada oo maanta ay ku dhawaaqday safaaradda Mareykanka ee Delhi ku taala inay fiisaha kala laabatay saraakiisha dowladeed iyo ganacsatada ku dhow Modi waxaana la sheegay inaysan dib u tagi doonin Mareykanka. Ma garanaysaa waxa loo cuskaday go'aankan? Waxaa la yiri saraakiishan iyo ganacsatadan waxa ay si qarsoodi ah u gelinayaan kiimikooyin laga sameeyo daroogada halista ah. Kala noqoshada fiisahana safaaradda waxa ay ku sheegtay inay qayb ka tahay la dagaalanka daroogada. Markii la soo gaaray 2000 waxa uu Mareykanka burburiyay dalal badan isaga oo ku andacooday la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada. Si la mid ah waxa ay u muuqataa taariikhda inay dib u soo laabatay oo Mareykanka markaan uu dalal badan ku gali doono la dagaalanka daroogada kaar cadaadisna uu adeegsan doono xilli mar horeba uu Mareykanka awoodiisa military dul dhigay dalka Venezuela. Pakistan ayaa shaaca ka qaaday heshiis difaac oo ay wada galeen Sacuudiga inuu qayb ka yahay hubka nuclear-ka oo la adeegsan doono si loo difaaco dhulka Sacuudiga haddii ay timaado khatar sare, sida uu maanta xaqiijiyay wasiirka difaaca ee Pakistan Khawaja Asif oo yiri heshiiskan waxaa ku jira wax kasta oo aan haysano inaan isku difaacno waana adeegsanaynaa hubka nuclear-ka haddii xaaladda la isla gaaro. Hadalkan waxa uu ka dhigan yahay isku day kasta oo lagu weerarayo Sacuudiga in la filan karo jawaab hubka nuclear-ka ah, taa oo qasbaysa in weerar kasta oo lagu qaado Sacuudiga uu yeelan doono cawaaqib adag.